Assalamu alaikum guys, welcome back with another video. Maanta waxaan idin wadaa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan. Haddii aad tahay marka hore channel ku soo booqo subscribe saar. Haddii aad video ka heshay inaad like saarto. Waan ogahay maadan igu barnin inaan muuqaalo noocan oo kale soo gudbiyo. Balse laakiin haddii muuqaalkan oo like fiican helo, insha Allah waxaan soo badin doonaa muuqaalada noocan oo kale. Waan ogahay badinkiina waxaad taqaaniin kaliya codkeyga ama muuqaalo noocan oo kale dinaalkii weligii maana soo gelin. Maanta ayaa ugu horeysa inaan muuqaal noocan oo kale soo geliyo. Haddii aad tahay markuu horeysa channel soo booqdo channel gudaha oo sii gal waad arki kartaa muuqaalada aynu soo gudbin jirnay. Maantana muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay wiil dhalinyaro ahaa ku soo daahay shaqadiisa, weliba waxa lagu gaaray xilli saq dhexe haweenimo. Wiilka intuu gurigiisa u soo socday ayuu wadada waxa ku qabsatay mucjiso. Wiilkan wuxuu soo socday wadada waxayna ahayd xilli saq dhexe ah, wadooyinkana waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad u cidla oo aad iyo aad u cabsi badan. Bas laakiin asiga aan cabsanaynin, wuxuu iska dhigay qof aad iyo aad gees u ah, wuxuuna socday wadada kaligiisa. Intuu wadada socday ayuu wuxuu arkay kursi ka samaysan geed oo badanaa lagu sugo basaska iyo waxyaabo noocaas ah. Kursiga waxaa fadhisay islaan ama qof weyn oo da' ah. Kursiga markuu qofka weyn fadhiyay, qofkuna wuxuu ahaa qof madaxiisa gariiraya oo kale oo si xawli ah u dhaqdhaqaaqaya. Run ahaantii wiilkii dhalinyarada ahaa aad ayuu arintaas ugu naxay. Qofkina ma uusan ahayn qof dhaqdhaqaaqaya, wuxuu ahaa qof hal qaab oo kaliya u fadhiya oo eegaya hal dhinac oo kaliya. Ma uusan ahayn qof dhaqdhaqaaqaya, balse laakiin madaxiisa ayaa gariiraya, wuxuuna ekaa qof aad iyo aad u cabsi badan. Qofkaasina wuxuu lahaa timo aad iyo aad u cad oo aad iyo aad loogu cabsan karo. wiilkii dhalinyarada ahaa waxaas waxba muusan u arkin, waa uu ka dhaqaaqay waana ka sii socday. wuxuuna maray kursiga dhankan camal ayuu ka yaalay, gadaashiis ayuu mar waa u gudbay. Haddana markuu wiilkii xoogaa sii dhaqaaqay ayuu haddana wuxuu arkay arrin markaan aad iyo aad u cabsi gelisay wiilkii. Sababtoo ah qofkii waayeelka ahaa ama islaantii waayeelkeed oo uu ka soo arkay wadada meesha uu soo dhaafay ayuu haddana isla markii haddana wuxuu ku arkay hortiisa. aad iyo aad ayuu markaan u naxay, waa uuna baqay. weliba qofkii wuxuu u fadhiyaa sidii markii hore u fadhiyay, wuxuu eegayaa hal dhinac oo kaliya, ma dhaqaaqaya, madaxiis ayaa xoogaa nuuxsanaya oo kaliya. waxauna ahaa qof qunfacaya, isla qunfici oo uu qunfacaya qofkii uu soo arkay. weliba aad iyo aad ayay isku egyihiin. waa arrinta wiilkii cabsi gelisay. wuxuu isku dayay wiilkii, wuxuu go'aan ku gaaray inuu arko qofkan wejigiisa. kursiga ayuu dhankiisa soo aaday. markuu xoogaa kursiga dhaafay ayuu soo jeestay. balse laakiin wuxuu arkay arrin kale oo kasii cabsi gelisa. wuxuu arkay qofka qaybtiisa dambe ee timaha oo madaxiisa iyo qaybtiisa hore inay isku mid yihiin oo aan waxba weji lahayn. cunugii aad ayuu aragay, aad ayuu cabsaday. kadib ayuu halba wuxuu maqlay cod dhahaya, ma waxaad u baahan tahay inaad aniga wejigiga aragto. bas laakiin waxaa dhacday arrin mucjiso ah. markii wiilkii la waayay ayaa maalmo si loo raadin ayaa waxaa lagu arkay kursi agtiisa asigoo yaala, weliba asigoo madaxiisa qaybta hore oo qaybta dambe ay martay. runtii sheekadan sheeko aad iyo aad u naxtin badan. fadlan haddii aad channel ku cusub tahay, ha ilowin inaad subscribe saarto. haddii aad jeceshahay inaan muuqaalada noocan ah soo badino, fadlan ha ilowin inaad like saarto. aad iyo aad ay u mahadsantahay. Welcome back.